xaaladda waxaan ka iri waxyaalo badan baan ka iri waxaase ugu dambeeyay gabay la yiraahdo inta Allah adqaadku ku saleeyo dastuurka marka soo bilaabo dawladdii horeetiyo qaran kacaankii markuu dubay Soomaaliya dal iyo dibad dil camiimay baa yimid dil aan dawlad hayno la isku dilaayo dil dhaafay baa yimid dilkii waayihii hore sidii la isku dili jiray la isku dilaayo dil ka sii daraa yimid adigoo wax dilino meel la isku dilayo dil baa aan ka qayb galin oo aan wax dili karin kuwa shalay wax soo dilay dilku uu la fudud yahay dil qabiil daraadiis in lagu dilaa timid kii ku dilay hadilino kan ku dilin dil baa timid ninkan dilay ninkii dilay dadka sidoo u dili jiray in loo dilay ha joogtay asagu baa ninku dilay dil haduu uga baqilaa ninku dilay ma dilila waa ma mugsunta hayeeshee dilkan jaan iska daba xariiro dabanaan dhamaanayn qandaraasta weyno dadku hoobta weeye dambigiisa iskale gobolada dalkeeniyo dalka xamarka oogsaday inkastoo dabaaqiyo dan gumaysta ay tahay diir lagama saaree horta ya dalaalka diinka ilmihiisa daymada ku koriyo dabagaal la abeeso tushaasu ka qaba inta la isku dagaayo daacad la isku sheegine dulmiga xaq la moodi dalkii aan kulkiisiyo dambaskiisu qaboobin dadku waa ku gubtaaye daadkii qaaday October sidoo san u dilaacin dib ha looga fogaado gobolada ilaa iyo dabankii dalka hooyo xoroobiyo inta maanta aan joogno nidaam dawladeed oo daacad aan ku dhisnayn baa dalkeennii kala daadsay dib ha looga fogaado inta wadaaga dushiisiyo daaqilkiisu ogaano muddo loo dabranaayo dartii loo qabraaye dimuqraad dinaceedno sidoo loo kala daadsaa xabad nooga darayde qabiilna waa ka dabkiisii wali uu dami waayee asbadaadku ha qaado waxaan doorka maanta ku dawoobi karnaa dambi dhaaf ilaahay uga doonan karnaa annagoo isku duubano diinta muqaddaska ah dalka lagu hoggaashay dar ilaahay manhajkiyo inta Allah adqaakum ku saleeyo dastuurka haddii aad firtaan waanadan diraayo dabuurta garan weydaana wixii aad ku daasheen iyo waxa daaran dhisteen isku soo wada duuba doofaar xoog lagu ceyrshay iyo galdeeda ka soo qaad muuqaalka halkan aan ka aragnaa waa dekadii weyneed ama boorkii weynaa ee Muqdisho oo tan iyo sanadkii 1996 markii ay ciidamadii UNISOM ay ka tageen aan la isticmaalin iyadoo khilaafaadkii u dhaxeeyay qaybihii kala duwanaa ee hogaamiyaashu darteed ay u xirneed dekadu markii ay gacan ku haynta magaalada Muqdisho la wareegeen maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliya durbaba waxa soo ifbaxay isfaham dhexmaray qaybihii ku jira hawshan oo markaasi wada gartay in meel walba oo bulshada halbowla u ahayd oo xayirneed dib loo furo baqaradani waa weyn waa baqaradii kaydka oo sidoodiiba ka badbaaday inay wax burbura soo gaaraan albaabka hore ee dekada ama boorka waxa ku yaala ama ka muuqda qaybo ay ka shaqeynayaan haweenkii nadaafadda iyagoo calankii Soomaaliyana uu ka dhex muuqday iyo waliba baabuur badan oo ay leeyihiin qaybaha maamulka guud ahaan waa dekada weyn ee Muqdisho waxa ay ka mid ahayd halbowlayaashii dalka Soomaaliya oo muddadii dagaalada sokeeyay dalka ka dhaceen marna xirmay marna furmay ilaa iyo aakhirkii ay xirnaato muddo ka badan 10 sanadood waxay ku guuleysteen maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliyeed sidaan horeba u aragnay furitaankii garoonkii dayuuradaha ee caalamiga ee magaalada Muqdisho